shalay yaan waxaan media ka maqalnay laba xildhibaan oo ayadoon si sharci ah loo marin runtii aad loo ataagayo oo xoog sheegad ku jirto taa annagoo la yaabanan haddana waxaan rabnaa midii kale oo haddana xala dhacay saad la socotaan ninka la yidhaha cabdiraxmaan waa nin siyaasiya waa nin ay ku fillaad keliya in warqad loo geeyo la yidhaha meeshaas imow arrinkaasu runtii meelihii dalka Soomaaliya meeshii laga keenay iyo isu tanaasulkii faraha badnaa ee la soo maray iyo muxuu ahaa meesha maanta uu joogo iyo hadda meesha loo celinayo waxaan isleenahay inaysan ku habboonayn arrinkaas markaan xalab maqalnay sidii xalan u taagannahay waxaan u tagnay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha salaad subaxan isku gaarnay annagoo ka codsanayna wixii meesha ka dhacana muxuu ahaa in meydkii iyo dhibaatadii meesha ka dhacdana lagu wareejiyo ciidamadan guriga laga soo dulqaado muxuu ahaa alxamdulillaah ninkii dhaawiciisii iyo si maadaama aan u garanay inaan sharci loo marin muwaadinkaasna lagu wareejiyo runtii taasuma aysan dhicin laakiin ballan ay naga qaadeen in ilaa 2 saacna sii dheen qodobkii dambe noogu xigana waxa weeye qodobka idaacadaha aan ka maqalnay arrinkaas waa mid soo dedejiday in xildhibaanada guddigan la baxay halkan isugu yimaadaan runtii arrin aan aad uga xunnahay weeye arrin cid kasta oo maqashay waddanka 2018 oo hadda la galayo dimuqraadiyadda loo socdo isu tanaasulka iyo meesha dalkan laga keenay in qoral lagu celiyo oo maanta la yiraahdo haddaad fikriga ka hor timaado baa sugan kula dhacaya runtii wax la qaada kara maahan arrinkaasuna waa arrin aan aad u cambaaraynayno waxaan leenahay si miir qaba arrinta loo wajaho waxaan leenahay cabdiraxmaan hana lagu soo wareejiyo xorriyadiisii haddii la dacweynayana processka hal la maro muwaadin waa dambi uu yeelan karaa arrinka kale oo laga hadlo waxa weeye dadka ayagoo hurdaya intii meesha loo tagay la xasuuqay ayagana waxaan leenahay dadkii dhintay inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun dadkii dhintay oo ka dhinteen iyo ehelka uga tacsiyeynaa annagoo ku hadlaynaa afka muxuu ahaa dawladda meydkaasna dadkii iska lahaa ayadoon loo geynaya waxaa la marsiiyey muxuu ahaa si jujuuba oo sidii nimankii arxan darraha camal yaa waxaan maqlaynay inay leeri ciidamadii la xasuuqay ayagana duugay arrinkaas waa arrin ayadoona geeri labaada waxaan leenahay madaxda dalka xakunta warbii waaye meesha maanta loo wado baashaha laga joojiyo waan ka talinaynaa haddii alla idmo mana aqbali doonno sida aad la socotaan waddankan 2 nin oo aqoon-yahana oo dhallinyaraha madax ka ah ayaandhood waxaad maqlayseen maamul goboleedyadii iyo duulaan iyo xoogaa qababaxa ka jirtay markii laga wada hadlay waa la isu tanaasulay waa la celiyey midii labaada lagu soo qaaday dimuqraadiyaddana waa midda maanta muuqata si fikirka dadka hor timaadana waxa weeye baa sugan kula dhacaya hadda muuqata dalkan qore uma baahna dalkan xoog uma baahna dalkan xisaab u baahan yahay waxaan leenahay aqoonta aan ka maleynay waxaan ku dooranay iyo saan inay ansixinay iyo waxaan ka raadinayno ma halkaas sad uga soo dhalaasheen maamul goboleedyada sad u xalideen mid la mid aan rabnaa in muxuu ahaa loo xaliyo waxaan tabaynaa in ay qolo ku hoos jirto raba inay dadka shacabka iyo dawladda iska hor keenaan inta nimanku waa nagala xoogaa firfircoonayeen shacabka iyo dawladda waxay dhihi jireen shacabkiina u tura meesha wax loo wadan laga soo celiyo shacabkana waxaan leenahay iyo dadka la xasuuqay iyo ciidamada iyo gadoodka hal la joojiyo labada aqal waxaan kugu jira muxuu ahaa dad mas'uuliyiina golaha wasiirada waxaad ku leeyihiin dad inkastoo kuwa barwaaqaysan oo wasiirkoodii muxuu ahaa amniga maanta farsamada ka dhacaysa aanan aad u jeclaysan aanan ku cambaarayno iimaanka meeshuu aaday haddana waxaan leenahay kuwa kale oo xisaabtami karaa jooga marka waxaan leenahay haddii alla idmo xisaabaan ku maqannahay qorga la adeegsaday yaan la aadin yaan muxuu ahaa ciidamo iyo howl la aadin annagaa hawshaa ku maqan waana xisaabtamaynaa waxaanan gaari doonnaa in cid kasta oo falkaas geysata mas-uuliyaddeeda ay qaadato in sharciga la hor keeno cid kasta oo ay gashana ugama hari doonno hadday madaxda kore ay lug ku gasho iyo hadday muxuu ahaa amniga yeelataba aadaad u mahadsantihiin intaas weeye intaan wakiilka uga ahaa inta meesha fadhida inaan sheego intaana waxa weeye waa erayadii la isku afgartay aadaad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu